boqolaal iyo boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Togdheer ayaa saakis ugu soo baxay xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Togdheer uu ku leeyahay magaalada Burco waxaana taageerayaashaasi kala duwan isugu soo banaan baxay xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani halkaasi kala hadlay mas'uuliyiinta ku sarsareeyay xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Togdheer waxaanay sheegeen inay ka xun yihiin tacadiga iyo sidoo kale xadhiga lagu kacayo mas'uuliyiinta ku sarsareeyay xisbiga mucaaradka ee wadani halka waxaanu ka cambaaraynaa anigoo ku hadlaya afkayga afka maamulka xisbiga iyo afka taageerayaasha xisbigaba inay xaaraan tahay in la iska xilxilo qof aan maxkamad waalan looga soo goynin oo xisbi qaran hogaaminaya waanaynu cambaaraynaynaa dhammaan mas'uuliyiinta xiran waxaanu leenahay mudane madaxweyne wadatashiga ku soo noqo waxaanu leenahay isu tanaasulka ku soo noqo waxaanu leenahay cadaaladda ku soo noqo waxaanu leenahay horumarka ku soo noqo waxaanu leenahay wixii Soomaaliland ku soo caanamaashay madaxweyne ku soo noqo baynu leenahay madaxweynaha waxaynu u sheegaynaa inaanay jirin colaad gaar ah oo loo qabo shakhsiyadeed mid qabiil iyo mid kala toona waxaana loo aaminsan yahay inuu yahay madaxweynihii qaranka haddii qoladayada mucaaradku markaanu hadlayno annagoo cadhaysan magaca madaxweynahaanu ilowno ha u qaadanin madaxweynenimadii lagaa qaaday oo ha xanaaqin madaxweyne in adeerkii cabdirashiid reeraac cabdirashiid maxamed cali injineerka waxaan leenahay nacayb reernimo lagugu diidan yahay ma jiro nacayb shakhsiyadoodoo lagugu diidan yahay ma jiro dhexdhexaadnimadaadii uunbaa la saluugay wasiiradii iyo dawladdii iyo madaxweynihii waxay ku mashquuleen xusbiyada mucaaradka inay u jawaabaan ayay ku mashquuleen loomana baahnayn inay gudaheenna ku mashquulaan waxa loo baahnaayoo loo doortay inay debadda dhaqaale iyo shaqaale iyo ictiraaf iyo hawlgal iyo xidhiidh caalamka ay noo sameeyaan baa loo doortay looma dooran inay ku mashquulaan wasiir weliba wasaaraddiisa war uma hayo madaxtooyaduu tagaa waxaa la odhanayaa hebel baa hadlay wasiir hebela waa reerkiinna u jawaab muuse biixi iyo dawladda kulmiye waxaynu u sheegaynaa halka ay ka miisaysa ee ay ka bilaabeen ee ay ka wadaan marka waxaynu dalka u sheegaynaa xisbiga wadani inuu isagu dalka badbaadinayo inuu halkii maxaafidku ku jiri jira isagu ku jiro ama xaraan ku ful ama xalaal ku ful dadkaanoo madaxweyne ka mucaaradkaanaadoo madaxweyne ka maxaafidkaanaadoo madaxweyne laakiin kaama dhaadhacsana xisbiga aad tidhi xaruntiisii iyo xafiiskiisii yuu ku shirin may madaxtooyada lagugu soo galaa doonaysay soo dhaxdee u bannay cabdiraxmaan dalka madaxweynaha waxaannu u sheegaynaa hadduu xafiiska xusbi maalinta dhagax ku shubo inaannu 5 kun oo iskorraga madaxtooyada ku shubi doonnaan lalaa haddii xarunteenna guud lagu shubaa dhagax dambe saw madaxtooyada kuma shubna dhagaxinala waxa weeyaan waanu cambaaraynaynaa wixii shalay Hargeysa ka dhacay aad iyo aad baanu cambaaraynaynaa waxaanu cambaaraynaynaa madaxdii xisbiga ee la xidhay waxaanu kale oo aanu cambaaraynaynaa komishanka sida xaaraanta ah labada xubnood sida xaaraanta madaxweynuhu ugu daray komishanka waa markii koowaad ee afayeen la xidho hadday sidan ku sii socoto ee Soomaaliland jeelashu inaanay qaadan baan u malaynayaa dadku dantooda way garanayaan war miyaynu kala dareeraynta xisbigeenna maalin walba la dafirayo war muuse miyaynu madaxweynenaa sharciga ka maqayay miyaynu madaxweynenaa markuu sharciga ku soo noqdaynu odhanaynaa madaxweyne markuu baarlamaanka xaaraanta inaga kala diro ayaynu odhanaynaa madaxweyne maanta odhan Shucayb Xasan telefishinka Sahan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer